Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada YouTube channelkayga. Magacaygu waa Iid. Waxaan ahay ciyaartoy kubadda ciyaara. Waxaan ku noolahay waddanka Switzerland, gaar ahaan magaalada Zurich. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa dhaawac iga soo gaaray kuraanta agteeda. Marka ma awoodin inaan kubad caadi ciyaaro, balse laakiin waxaan aadi jiray maalmihii ugu dambeysay gymta. Marka waxaan jecelahay inaan la wadaago alaabta gymta ee daawasho wacan. dhaawacan horta iga soo gaaray kuraanta agteeda waa dhaawac mar walba soo gaari jiray, waxaana mataqaanaa sanadkiiba malaha hal mar ugu yaraan way ugu dhacaa, ama ugu badnaan 3 jeer 4 jeer way ugu dhacaa. waana wax mataqaanaa sabab u ah seedaha kuraanta agteeda oo aad u jilicsan, oon ahayn kuwa adag, oon u dulqaadan karin dhaqdhaqaaqyada qaarka. saa darteed uu dhaawac ii soo gaaraa ayaan filayaa. balse laakiin waxa mataqaanaa waxaan ku qasbanay mar walba, waxaan awood u leeyahay in maskaxdayda iyo jirkaygu awoodo inaan sameeyo hadday noqoto gymba. dabciin waxaan aniga lafteedu jecelahay inaan sameeyo waxyaalaha adag, inaan kubadda qaato oon mataqaanaa intense training inaan sameeyo oo kale. laakiin markaadan awoodin mataqaanaa waxa weeyaan inaad kulba waxaad awoodidaad samaysid. imar fiicna mataqaanaa inaan xaafadda iska fadhiyo oon sugo uun ilaa inta ay bogsoonayso lugtu. haddii aad tahay ciyaartooy, waxaa ka fiican intaad fadhiyi lahayd adiga oo active noqda, oo ama gymta taga, ama haddii aad awoodid inaad yaro lugayso inaad lugaysid, haddii aad awoodid dabaal inaad tagtid
hal cisho ka bacdi waxaan mataqaanaa aan halkan waxaan awoodayay kubadda usii adag ma awoodeyn inaan kubadda qaato garoonada matago ma awoodin dhaxanna horta way ahayd banaanka marka waxaan isaga ciyaarayay halka yar meel yaroo wada la dhex maro oo mataqaanaa dhulka hoosteeda ayaan isaga ciyaarayay waxaan sameynayay exercise koowaad wuxuu ahaa ama training koowaad waxaan sameynayay kicis ama moolo saad u taqaanaa wuxuuna ahaa kicis jilbaha hoosteeda oo boqol ka jarayay waxaanan isku dayay markii ku xigteen inaan lugta midigta ah inaan boqol kaga jaro anoo halkaa iska ciyaaray kickiskiisa sii wataayo mataqaanaa qof isoo hormaray qofaa meesha soo istaagay waxaan ku qasba markaa isna wuxuu doonay inuu wadada maro kaamirtan way socotay marka wuxuu doonay inuu igu dhahdo waxaan doonaya wadada inaan maro markaas laftiisa aan u eegay kubadda iga dhacday markii dambana markii xigtana lugta bidixda ayaan boqol inaan kaga jaran isku dayay laakiin midigteyda maadaama dhaawac iga soo gaadho ma istaagi karaynin marka inaan lugtana xanuun mataqaanaa saa'ida markaan dareemo kubadda dhulkaas ka dhiganayo waan yar nasanay haddana waan ku celinay ilaa boqolan gaadhsiiyo kabacdi markii dambe waxaan sameeyey boqol kicis oo jilbaha wixii ka sarreeya ah ugu dambaystiina waxaan sameeyey kicis adigoo anoo kicsanay inaan gidaarka aan baas ahaan ugu dhiibto oo ii soo noqdo kubaddu iyadoon dhulka taabanin inaan sii wado haddana baas haddana inaan qabto kubadda oon ku kontaroolo midigteyda maadaama midigteyda kuma shuudi karaynin meesha xanuunaysa wax weeyaan waa meesha aan ka shuudi lahaa aniga lafteedu marka waxaan ku shuuday bidixda midigtana ku kontaroolay marka waa kaa wixii su-aalayo wixii talooyin iyo wixii codsiyaba waxaad igula wadaagi karta commentiga dhexdiisa taladaada ama fikradaadu aniga aad ba ii dhiirigelinaysaa oo wax mataqaana aan u baahanahay
adoo i dhiirigelinaya ha ka iloobin YouTube channelkayga inaad subscribe garayso, like-tanaad saartid, comment-iga inaad kasoo bixisid, asxaabtaadan adiguna aad la wadaagtid. waa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. I can fly